xafladaasi dhiirigelinta ah waxaa ka qayb galay wasiirka wasaaraddaasi cadaaladda, wasiir ku-xigeenka xogayaha joogtada ah, kusimaha xeer ilaaliyaha guud ee qaranka ahna ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud, aqoon-yahano ku xeel dheer dhinaca sharciga iyo marti sharaf kale oo lagu casuumay. xogayaha joogtada ah ee wasaaradda cadaaladda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Ismaaciil Jimcaale oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in wasaaraddu ay ahmiyad gaar ah siinayso sare u qaadista tayada aqoonta ardaydaasi, isagoo tilmaamay in wasaaraddu ku guuleysay suurtagelinta in arday gaarayso 80 ay waxbarasho bilaash ah ka siiso jaamacadda Muqdisho University iyo tan Puntland. mudane Yaalmir weyn waxaan ku faraxsanahay in horta markii hore u mahad celinayaa jaamacadaha ajiibay ardadaas hay'adaha maalgeliyay initiative-ka cadaalad horaan u sheegay aad iyo aadan horta hadaan anoo ka wakiilay wasaaradda cadaaladda qaybta technical team-ka ah waxaan ugu mahad celinayaa habka ay u hadaladinka leeyahay u soo agaasimeen xafladan ardadan. kusimaha xeer ilaaliyaha guud ee qaranka ahna ku-xigeenka xeer ilaaliyaha Dr. Muuse ayaa wasaaradda cadaaladda ku amaanay qorshaha waxbarashada bilaashka ah ku siinayso ardaydaasi Soomaaliyeed, wuxuuna ku dhiirigeliyay ardaydaasi in ay ka faa'iideystaan fursadaasi qaaliga ah. waxa la idin diyaariyay ee la rabo inaad ka soo baxdaan ee la rabo inaad u diyaar garowdaan waa culeyskaas akhlaaqda kariimkan ay nafarayso, wacyigeenu oo nafarayo, baahida bulshadeennuna ay nagu waajibinayso. cadaaladda in loo diyaariyo dad akifo ah oo leh aqoonteedii oo intaa kadibna leh gardaadiskii wasaaradda cadaaladda waxay la micno tahay bahda cadaaladda waa guuleysanaysaa waana guuleysatay. wasiir ku-xigeenka wasaaraddaasi Dr. Ciise Weliye Maalin ka hadlay ayaa sheegay in wasaaraddu ay mudnaanta siinayso soo saaridda dhalinyaro soo baratay sharciga iyo qaanuunka si loo horumariyo hanaanka garsoorka dalka. wasiirka wasaaraddaasi Abukaato Xasan Xuseen Xaaji oo munaasabadaasi soo xiray ayaa sheegay in wasaaraddu ay dib u habayn ku sameynayso shuruucda garsoorka dalka, wuxuuna intaasi raaciyay in wasaaraddu qorsheynayso furidda machad lagu tababaro qareennada iyo xeer ilaaliyaasha si loo tayeeyo garsoorayaasha maxkamadaha dalka. wasaaradda cadaaladda marka waxay ku howlan tahay ku mashquulsan tahay in la helo machad lagu tababaro garsoorayaasha iyo xeer ilaaliyaasha iyo qareennada. doodiis way socota, waxaana u aragnaa inay aad iyo aad muhiim u tahay. machadkaas haddaan helno mid boqdasho aan ka helno, mid kalena adii dowlad goboleedadana meeshii uga habboon aan mid kale ka helno, kulley machadkaas markii jaamacadaha saan looga soo baxo imtixaan la galo ciddii imtixaankaas ku baas in machadkaas adii muddo sanad mise 6 bilood mise 2 sano uu ku jiro. munaasabadan dhiirigelinta ah ee wasaaradda cadaaladdu ay u samaysay ardayda Soomaaliyeed ee baranaysa sharciga isla markaana ay wasaaraddu shir lacag la'aan ah uga siisay waxbarasho lacag la'aan ah ka siisay jaamacadaha Muqdisho iyo Puntland University ayaa noqonaysa tii ugu horeysay ee nooceeda ah ee wasaaraddu ku dhiirigelinayso ardayda baranaysa sharciga si loo soo saaro jiil cusub oo barta sharciga iyo qaanuunka dalka si wax looga hagaajiyo horumarinta hanaanka garsoorka dalka. Waliid Maxamed Sabriye, telefishinka qaranka, Muqdisho.